Banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo howlgalka ciidamada ICE ay ka wadaan magaalada Minneapolis ayaa ka socda in ka badan 70 magaalo oo ku yaala dalka Mareykanka. Dibadbaxyadan oo bilowday saakii waa berigii hore ayaa dhashay kadib markii maalintii shalay ahayd ciidamada ICE ay dileen muwaadin asal dhalad ah oo u dhashay dalka Mareykanka. Dilka muwaadinkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ay ciidamada ICE ka geysteen magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Dibadbaxayaashan ayaa ku dhawaaqaya oraahyo ay ka mid tahay ICE ka bax Minnesota, ICE ka bax Minnesota. Howlgalkan ayaa ah mid lagu musaafirinayo muhaajiriinta aan sharciga haysan ee ku sugan Mareykanka, balse waxa uu dhaliyay falal amni darro ah oo gudaha Mareykanka ah, waxaana inta la diiwaan geliyay la arkay dhowr qof oo ay dileen ciidamada ICE inta uu socday howlgalka lagu musaafirinayo muhaajiriinta soo galootiga ah ee dalka Mareykanka. Dhanka kalena Soomaalida ayaa ah cidda sida gaarka ah loo beegsanayo maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu marar badan sheegay in Soomaalida ku sugan magaalada Minneapolis ay yihiin dad dhibaato badan ku haya dalka Mareykanka.